بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام خيارته. bulshadeena Soomaaliyeed waxay aad u jecel yihiin shahada aadna ay u isticmaalaan baraha bulshada maanta haddaas fiirsana warar badan waa laga sheegaa xog badan baa laga bixiyaa qayb sax qayb aan sax ahayn marka shahada si maanta wax loogu sheegi ama loo xumayni maahan shahada way fiican tahay jirkan way ku fiican tahay faa'iido badan way u leedahay marka dhowr baaritaano la qaaday waxaa lagu ogaaday shahada in ay faa'iido u leedahay wadnaha oo caafimaadka wadnaha qayb ay ka qaadato baaritaanka loo la qaaday waxaa lagu ogaaday shahada waxaa ku jira waxa la dhahaa tanninska in sunta jirka ku jirta ay sifayso oo waxyaalaha sifeeya ay ka mid tahay ayaa iyadana lagu soo ogaaday marka waxaa kale biyaha jirka aad u baahan yahay dhowr nooc baa jirka usoo ay u galaan biyahaas toos u cabtay noqotaa juices cabtay noqotaa caano cabtay noqotaa marka shahada waxyaalaha biyaha siina jirka bay ka mid tahay maadaama wax biyo ay tahay marka waxaa kale caffeine baa ku jirto haddii adoo daalan aas koob shahwa si fiican loo hagaajiyo aas qac ka siiso waxaa dhici karta inaas maaragtay active aad noqoto ama firfircooni ay ku siiso oo shaqo marka hore aad qaban lahayn inaad qabato marka dhowrkaas faa'iido bay shahada ay leedahay waxaan leeyahay shahada bataatan jirka uma fiican ama caafimaadku ay xunta leeyahay ereyga maxaan ku dhahaa hadalkaas hadal sax maahan shahada jirka way u fiican tahay maxaan ku dhahaa faa'iidana way u leedahay laakiin waxaa faa'iidooyinkaas laga heli karaa markii si dhexdhexaad ee shahada loo cabo in la iska badiyo maahan maxaan ku dhahaa haddii shah zaa'id aad cabto waxaa dhici karta inay dhibaato kale ay ku keensato marka iyadoo intaasoo faa'iido markaan jirka u leh ayaa haddana dhibaatana jirka ay u keensan kartaa kow waxaan kasoo sheekaynay cunooyinka laga hela nafaqada ama macdanta loo garanay ion jirka wuxuu ka hagaajiyaa ama waxaa laga hagaajiyaa dhiigga muhiim ayaasna u yahay maxaan ku dhahaa nafaqo muhiim ayaas jirka u yahay marka shahda tannins ayaan kasoo sheekaynay taasoo antioxidant oo jirka maaragtay sunta ka sifayni marka waa midi laba af leh qaybtan faa'iido bay jirka u leedahay sunta bay ka sifayni qaybtaanna ionka ama macdantan cunooyinkan laga helo oo dhiigga laga hagaajiyo ayay isku duuduubaysaa marka ionka jirka ma isticmaali karo maxaan ku dhahay shahda macdanta ionka loo garani oo cunooyinka laga helo bay haddaad shah la cabto cunadin aad cunto shahna aad la cabto tanninskan macdanta loo garanino shahda laga helo ionku bay isku duuduubaysaa marka ionki jirka maxaan ku dhaha ma isticmaali kara dhiigna lama hagaajin karo marka meesha waxaa ka imaadi kara qofkii in dhiig yara ay ku dhacdo waxaa kale shahda anaga Soomaali haddaan nahay sokor badan baa ku darnaa 3 jibbaar 4 jibbaar sokortii laga rabay in lagu daro ka badan baan ku darnaa marka energy badan oon loo baahnayn jirka aad u baahnayn bay jirka ay siinaysaa waxa loo garanay empty calories haddaan shaqo lagu qabanina xayr isu bedelayso kadib qofkii in kiilihiisa asmaarad kor u kacbay noqonaysa waxyaalaha kale waxaa ka mid inkastoo hadda baaritaan sax aan la qaadin oo ama xog weyn oo hadda baaritaan lagu keenay aan la haynin waxaa loo malaynayaa shahda kuleyl iyadoo haddii la cabo in ay dhaawacayso pipekan cuntada qaada esophagus loo garani ama hunguriga loo garani bay dhaawacdaa marka waxaa dhici karta in qofkii aas cunaqabad ama ku dhaca ama kansaaga dhuunta aas ku dhaca marka taas waa tuu hadda loo malaynhaya maahan baaritaan sax hadda la qaado lagu ogaaday ama xog jirto hadda maanta oo maaragtay oo arrintaas qeexaysa ma jirto laakiin waa loo malaynhayaa shahada haddii iyadoo aad u kulul qofka aad cabo in hungurigiisa ay dhaawacdo kadib cunaqabad aad ku dhaca ama kansaaga dhuunta ku dhaca iyadana ay dhici karta waxaa kale shahada haddaas cabto oo aad u cabto 2 koob 3 koob camal aad ka cabto caloosha gudaheeda nafaaskii cunooyinka nafaqada leh aad gelin lahayd bay ka buuxinaysaa marka waxaa dhici karta adoo cuno nafaqo leh maaragtay nafaas aad gashan lahayd bay shahada ka buuxinaysaa in shahada meesha ay ka buuxiso cuno kaloo wax ku tari lahayd jirka wax ku tari lahayd aad cunin oo maaragtay oo meeshiiba ay ka buuxsanto kadib aad ku wado marka dambe nafaqa darro inay qofka ku dhacdo ayaa dhici karta
marka khaasatan caruurta yaryar oo 5 sano ka yar bataatama in la siiyo maaha sababtoo ah caloosh bay ka buuxini naaska hooyada hataa si fiican uma nuugi karo cunooyin kaloo nafaqada leh la siin lahayna nafaas ay gasho arki ma haysa maadaama shaadi meeshi ay buuxis hooyo uurka leh sida camal ayagana waa inay iska yareeyaan shahda cunooyinkana ay la cunin si maxaan ku dhaha bataatan oo shahda haday cabayaan oyba ka maarmin kaligeed ay cabaan hooyaalka iyaga nuujinaysaa camal waa inay waqtiyaalka oy cunooyinka cunayin ay cunin oo gooni ay maaragtay ay u cabaan kaligeed marka waxaa loo baahan laba shay waa inaas dhexdhexaad ka dhigto oo isku badinin shahada labo waa inaas cunooyinkan macdinta ayonka loo aqaana laga helina aas la cabin 2 saacadood waad ka hormarin kartaa 2 saacadoodna waad ka dambaysiin kartaa ugu yaraan 2 hours before and 2 hours after marka waxaad ogaataa dhibaatada ugu weyn oo shahada jirka u geysan karta waxaa waaye it inhibits iron absorption in the body marka taasaa la ogaado faa'iidana way u leedahay dhibaatooyinkaasna jirka way u keensan kartaa ay hob baad fahanteen baan u malaynin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu